إن قدوميها حسب معارض كوعيد إنجنير فيصل علي ورابي أنا مشرح جدة مدحوني حسب قاسي قدومية مالنتي شلي هاد قار كم يدحل لباندا دولة برلمان كالصومالية وحي وجود بين موشين كدنا سليقة ميليتري الصومالي لأن إمارات كقسم سنة مقالة بربرة كحسب هان أرنتها سي موشين كاسدة دو أركت وأوتين برلمان كاللي وبرلمان الصومالية يدولة الصومالية بقى مدنا وحشرة معها دولة وحوية دولة دلما حكمتها عشور ما قادتها هشيس مجري كرتها مشهار مبحين كرتها مال صوت دورتي انتو مجرتو سوماليا ويا قوقودي شن ميلود بالو كلا جري شنت ميلود بال شن ودن با كلا هايستا ودنو كسميسديا مغعنا waxa lagu tala galay magac la isticmaalo oo wixii khayraadna lagu gurto dhalinyartaasna lagu la dagaalamo oo dawladda Soomaaliya ogolaatay ama ciidamada soo galaan dagaal Soomaaliya la heshiisay sida company la sameeyay some oil ay marka badda ka dhoranaya shidaalka marka nimanka leeyahay waa baarlamaan de kuwa inay naga jiraan wad ogtahay magaca Soomaaliland ku jirana inay naga nabatalin kuwa kana konton qof oo lacag siiyeen ayaa doortay marka waxaan leeyahay wadamayo magaca ida haysataan hawsha idin taala way badan tahay Soomaaliya wuxuu baahan tahay in la badbaadiyo dadkii la badbaadiyo dhulkii la badbaadiyo maanta ma jirto wax Soomaaliya waa magac lagu shaqaysto inagu magac waa la wadaagnaa isku jid baynu nahay laakiin magaciina way baabiyeen magaca Soomaaliya waxyaalaan leeyahay markaad soo baxda kala aan dooyin magac aan ku bedelo magac ka guurno waxa weeye magac way qurmiyeen maanta waa aragtaa Afrikaan baa jooga Sierra Leone baa joogta Burundi baa joogta iyagu waddankoodii wadi kari waayay raggan kale wax baanu sameeynaa Jubaland kuma laha saameyn oo waliba le waxaan ka tirsan federaalka Puntland saameyn kuma leh South West kuma leh tadaxa kuma leh meel alla ay tale kulay ma jirto wanima waxay qabtaan waayeenoo Somaliland ka dhiganaya meherad gaar waxaan leeyahay war hadda wax qabanaysaan intayda hoosta alaaba badanay intiina qabsada Somaliland ida dalkeeda haysata lixdankina anaga dalka ku darnay dalka aabayaasha ku daray maantana caruurtoodii baan anaga kala goynay oo dan aan u arkay in dan Soomaaliland dadkeeda ahayn ina culimani reer Soomaaliya ina wax noqon anaga jecel laakiin cadaawadda abuurina shacabka reer Soomaaliya waxaan leeyahay way digi lahayd dekadii bixiyeen oo DB bay saxeexeen ina wax cunaba inooba ogola siyaasiyiinta Soomaaliya iska daa in dekad iyo leynoo dhisay iyo wada inay noolaanaba waa siyaasiyiinta shacbiga maaha marka waxaan leeyahay waqti iska khasaarina raga muusheekena Cabdalla Sheekh Baawaye marka waxa weeye waqti naga khasaarinina waxayna yeelayaan ma jirto waxa gardarada iyo idabtarada sameeyana shacbiga Soomaaliya uma qabno way ku eegtahay anaga hagaajin doona shala kuwaas haday dan leeyihiin dowladda ha baabiyeen ciidamada iska qaadeen halka Soomaali gacantooda ugu jira Sierra Leone ma jiro Mareykanku ma jiro Ingiriis ma jiro halka Soomaali ku jira Soomaaliya way baabaaday hablaheeni ba biyo lagu shookansanaya cunto lagu shookansanaya abaarada waad aragtay intaas oo dhan baa hoostaala Somaliland oo dalkii la hadaan ku haystaan anaga saxnay anaga u dhalanay anaga Ilaahay nagu abuuray jawaari burxaba ku dhashay wuxuu Somaliland ka yaqaan talxe on meel ku dhashay garanayni wuxuu Somaliland ka yaqaan marka in waxa soo kala wax ka dhigtaan oo waliba su'aalo weydiisaan gaalada maxaad ka damacsan tahay in heshiiska Somaliland iyo saldhiga maxaa ka galay Ingiriiska maanta weydiisa kiyuanta maxaa ka galay waa waddankeeni inaga ka talina inaga u dhimanay xabaalihina maanka soo faqaya oo daadku soo saaraya gaasad nin xamar joogay nin Mareykan joogay maxaa ka damacsantii talada habixin talada inaga leh kuwana wax jira maaha lacag lagu shaqaystaa mushaarkooda waa la bixiyaa hadda waa laga jaraa waxa doonta laga saxdaa jawaana wuxuu ka socdaa Norway ka socdaa oo keenta meesha shidaalka doonaysa farmaajo iyo kan ra'iisul wasaare Ingiriiska ka socdaan doonayaan qaataan shirka London ka dhacaya khayraadka Soomaaliya lagu boobiyaa waa laga saxanaya shirka London ka dhacay leemay baa dhacaysa dan Soomaaliyeed maaha
waxaa weeye tuugtaa isku tegaysaa shirkadii tuugtahay u soo seexaya markaa waxaa soo horyaale dee waxa socda safarku ha socdo aydun ha aydo waayahay gudoomiye 12 bishii February ama bishii labaad golaha guurtidu waxa ay sameeyeen muddo kordhin ta madaxweynaha iyo ku-xigeenka sideedii waxba kama bedelin laakiin ta guurtida iyo golaha wakiilada iyo deegaanka min 2 sano ku dareen arintaasi sidee adiga kula muuqata ka gudoomiye أنا سوى قالت قلت بس قالت بس سميسها هي اسكو كوريي لا ولا قرا هذي بارمان كو كوريان ايو دوركيا دنتودي كهادلين لكن دنتي قرانك كما هادل حالده ودكينا ما قيمين waxay u taala arintaasi madaxweynayaasha dambe soo bixi doona aniga haddaan soo baxnay insha Allah taala mowqifkaygu iska cad yahay dalila waanu dalkan waan hagaajinaa insha Allah sharci baan dalku soo roginaa sharci يا هذا شرعي ما جرو نبوح دونه سمينيا شرعي ما كسورين إن شاء الله تعالى. marka hadii aad ku guulaysato talada ma kala dira saaxeen muxuu ah golayaashan hadda waa kala diray aanu ma qalay waa kala diray sharci baan sameeyna guurtida sharcigeedii aan sameeyna ma loo baahan yahay iman doonta hadaa loo baahdo waxay qabanaysaa yaa guurti noqonaya ya shaqada maxay noqon doontaa waxaan dib baan u eegnaa waan wada review gareena waxaan sameeyay wax degdeg ah ahaayeen baarlamaan fadhiyo 3 teermna adduunka lama jiro boqolka maalmood oo horeeyaan wax kala qaban ma hadii la yiraahdo 3 go'aan ka shaqeynaya insha Allah taala